السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وناكسن أصحابي مالكستوات نقد عوريسان كسو دوادا مركلة إيو قصة آنو إذن كوكو ترقلني تضبات كن هدبا قصوين كانوا انت بدن وحينو كسو حرانا كوا آنو إسلالنا هاي تدكو وح بدن أي كأوغان كران أو أي كبران كران هدبا qisooyinkeena inta badan waxaynu ka soo qaadanaa buugga qisooyinka la yaab kale ee uu diyaariyay uu qoray qoraaga la yiraahdo Abu Dalal al-Hamarani. haddaba qisadan waxa ay dhacday waxay soo bilaabatay sanadkii 2012 ilaa waxay socotay sanadkii 2022 وقصو إلى 10 سنة سعودي waxay ka dhacday deegaanka la yiraahdo ama degmada la yiraahdo Faysalabad magaalada la yiraahdo Faysalabad ka tirsan gobolka Punjab ee wadanka Pakistan. Faysalabad waxa caadiyan Faysal boqorkii Sacuudiga boqor Faysal ayaa loogu magac daray isaga wax badan ka qabtay magaalada dib u dhiskeeda masaajida iyo waxyaabo badan meelo badan oo caalamka sidaas oo kale ayuu Faysal boqorkii Sacuudiga wax badan uga taray oo wax uga qabtay marka isaguna masaajida badan oo sameeyay ilaahay ha u naxariisto ajarna ilaahay ha ka siiyo boqor Faysal boqor fiican buu ahaa Sacuudiga marka magaalada Pakistan isaga ugu magac dartay waxa la yiraahdaa Faysalabad. hadaba marka maxaa dhacay qisada marka waxay ka bilaabanaysaa nin oday ah oo da' ah waxa la yiraahdaa Baasaad. xaaskiisa mar hore dhimatay caruurtiisuna waa weynaadeen shaqooyina meelo kale ka kala heleen way ka kala guureen inta badan waa wiilal caruurta u dhalay isaga gabar muusan dhalin marka odagii meel cidlo isaga soo dhacay wiilashii dee mid walba naag buu guursaday danihiisu raacday inta badan gabdhaha haddii ilaahay uu wanaajiyay laftirkooda ayaa wiilasha ka naxariis badan marka loo fiiriyo dhanka waalidka marka gabar ninkan ma haysan laakiin gurigu deganaa 2 dabaq ka kooban dabaqa hoose isaga deganaa korna wuu kireystaa beer weyn oo meesha magaalada banaankeeda ahna wuu leeyahay maadaama uu qof iska da'ayahay halkaasuu iska tagaa beertaasuu iska soo joogaa meeshaasuu salaadihiisa isaga soo tukadaa waxa la yiraahdaa Baasaad odagan. Baasaad maalin maalmaha ka mid ah waxaa guriga ugu yimid islaan iyo gabar ay dhashay iyo nin wada socda. islaanta waxa la yiraahdaa magaceeda Zaynab ninkadana waxa la yiraahdaa Ahmed Abbas iyo gabar waxay weydiisteen in guri u bannaan yahay marka guriga kore marka ka hor ayaa qolo ka guurtay marka wuxuu yiri qaybta kore ayaa ii bannaan qaybta san kireeyaa kiradii lagu heshiiyay lacagii wixii uu ka qaadanay uu ka qaatay way wareysteen aniga meeshaan deganahay yiri nin iska odayo aan ahay meesha beertaas iska tagaa oo iska soo laabta. Zaynab iyo odageedii iyo gabadheedii guriga laga kiriyay guriga ku noolaay. Zaynab marka islaan fiican ay ahayd odaga marka inuu kaliya iska yahay way aragtay marka waxa jiray yaa am annaga casha anaa ku keenay habeen kasta marka beerta ka soo laabatid cashadaada iyo waxaaga anaa ku siinay marka meel uu soo mari jiray rooti waxna ma karkarin karo oday iska waayelo waay marka waa iska xaalad aad u adag u isaga jiray marka waxay yiri waaye marka waxay karsadaan ay habeenkii wax uga keentaa markuu yimaado maghribadii uu yimaadaa salaadu tukadaa kadib way u keentaa cashadiisa cashahu tukadaa kadib uu iska seexdaa. markii muddo sidaa lagu joogay soo wax dhiba reerka ka maqlin isaguna uu beertiisa iska aado xaalku uu sidaa yahay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa ayuu dareemay gurigiisa marka qisada magaceeda qoraaga wuxuu u bixiyay qisada raa'ixatu kariha la yiraahdaa macnaha urdaran
wax uraya ayaa qisada magac xataa looga dhigay. marka wixii yaa uraya ninkan waxa uraya maxay ma xayawaan ayaa ku dhintay meesha, dooli miyaa dhintay mise jiir, ma mukulaal ayaa dhimatay, ma sidee wax u jiraan, ma wixii ninkan nin iska odayo waaye, inta ka fiiri waxba ma arkin, iska baxay. uu maqnaaday, uu soo laabtay maalin kadib wixii waa soo karkii waa soo karayaa, urkii wuu soo badanayaa. ninkan wuu yaabay. subaxii intuusan bixin guriga maaligii dhan waa fiirfiiriyey, waxba male, gurigiisu u malaya isaga waxa uray. haddana banaanku la wareegtay, luuqiyo fiiriyey jiirooyinkii wixii inay wax ku dhinteen meesha, waxba ma arkin. laa xawla walaa quwata ilaa billah. war waxaan uraya maxay ahaayeen? odaygu iska baxay, salaad subax markuu iska tukado iska baxaa. urkiyaasii karay, urkii waa batay oo dariskii u gaaray. odaygii markuu soo laabtay, niman dhalinyara oo dhalinyarada xaafadda ah oo ilaa 6 ah ayaa gurigiisa agtiisa jooga. markaasuu wuxuu dhahay maxaa dhacay? markaasuu yidhahdee adeerow xaafaddii waa joogi laanahay, urka ka soo baxaya gurigaaga. marka guriga maxaa ka jiro, maxaa dhacay? walaa xawla walaa quwata. war aniga wuxuu yidhi dhagaysta, war anaa ku wareeray, oday wayna waa fadlan ila baara waxa uraya oo guriga ku jira. anigaba waa ark, mar walba waa kasii darayaan, waa ogahay. laakiin subax walba waa baaray, habeen waa baaray, xilli kasta waa baaray, waa waayay. adika bal ila fiiriya. okay dheh, albaabkii u furay. wiilashii dhalinyarada ahaa halkan ka fiiri, 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 halkan. gurigiisii dhan waa la baaray, wax maba lagu arkay. mid kalaa wuxuu yidhi raa'ixada dhanka jaranjarada ka imaanaysa. macnaha jaranjarada guriga qaybta kore ayaa urku ka imanaya. nakena yaa deganay dheheen camuu kor wuxuu dhahay islaan iyo odageeda iyo waxaan ka kareeyay iyo gabadheeda way soo fuuleen. raa'ixadii guriga shuqada qayb kale, albaabka kaloo laga sii gelayay qaybta kore ayaa waxaa ka soo baxaya raa'ixa kariiha, ur daran. meeshii waa la joogi, waa wiilashii sanka mara ku xirta asheegin wuu ka soo dhex baxayaa. markaas yidhi camo gurigan waa waxa uray kaaga maaha, gurigan dadka degan oo garaaca. waa la garaacay, waa la garaacay, waa la garaacay, waa la garaacay. zaynab axmed cabaas, zaynab axmed cabaas oo odag uga haya, wax furahaya lama arko. marka waxay leedahay camo dee saan laguma joogi kara, cidda hadday maqan tahay maxaa samaynaa? aniga waxaan hayaa yidhi fure kale. odayaashu dee waa odayaashii hore caadi maaha, guriga fure, laba fure, alaba haystaan. wuu soo degtay, furihii kaloo keenay, waa la furay gurigii, waa la qayliyey. axmed cabaas karay hada. markii guriga la galay, urkii waa sii daray, waa la yaabay. waxaa la arkay markaa in guriga uu yahay waxa uraya. odaygii marka wuxuu yidhi maadaama ay maqan yihiin waxa hala baaro, anaa ka mas-uula, cidda aniga aqaana guriga ka kareeyay, wax dhiba ma jiraan, halkan laga baara. midaa marka wuxuu aaday kushiinka. laa xawla walaa quwata ilaa billah. soo cararaya ayuu dadkii u yimid, odaygii iyo 5tii kale. markaasuu wuxuu yidhi waxa urayaa waa kushiinka waxaan ku arku yidhi gacan iyo lug go-an oo bini aadam iyo waxa kan hilib la solay oo la kariyey oo meel ku jira iyo kuwo kale oo saas u waran oo talaajadii oo maaragtay iyaduna buuxda. maxaa ka buuxa? war hilib dadaadaa ka buuxuyo. odaygii wuu yaabay.
بسم الله الرحمن الرحيم ورسلانتي أول لما يقعنوا مركضوا حرديس وحبها السمايننا بوليسكي أوعينا بوليسكي على وعي بوليسكي أرد أيام مركز سوق كلام وحي واليابي odayaa la wareystay odaygu wuxuu yiri arikaana dhacay aniga dadka guriga waa ka kariyay hadda qof jooga ma islaantii ma joogto odayii ma joogo gabadhii ma joogto waxa meesha jarjarana ragay u egyihiin oo lugaha timay leeyihiin meesha luga timale iyo gacmo timale iyo eeshiya ku atima badan mogti gacmihii wixii odayaa lagu karsaday meesha بسم الله الرحمن الرحيم بوليسكي اريدا دنا xireen qolo oo hawlahaas qaabilsanaa la keenay wixii oo dhan la aruuriyay wixii hilbihii wixii dhan la qaaday odayaa la kaxeeyay waxa la geeyay meeshii saldhigga booliiska la geeyay oday markuu la wareystay goormee kuugu dambeysay xalay ma arkin oo yiri cuntay awal ii keenay jirtay habeen hore iigu dambeysay habeen hore maxaa cuntaa la yiri wallahi habeen hore waxay ii keentay yiri hilib aanan weligay arkin oo tira badan booliiska wuxuu yiri adeero hilibka qaybna waa la kariyay qaybna wataan qaybtii la kariyay ka dheregtaa la yiri odagii waa mataga ay tayiri وبا أنا ما هذا هيل بدأ ما عني نختار كهالي جايو نكى والله قاعد وده نختار كهالي جاي سلانتي على الرادي سلانتي زينب هاي يجبد دي على صوغت بوليس كي على كان زينب هاي ورنا اللي الجورجا وحاشا كالعاي مكور حيسا هاي تري هاي محل عي وحد عي تري هاي نكن أنا جاي قبي وحوها مجلس أحمد عباس قبض أن جورجا كوهي سنة السجع جمدلين نكله أو يقدر أنتي الله قلنا حديثه أو لديه جري شريف أو نوّنا سنها أيا قبض دلي gabadha markay soo kortay xogaa soo weynaatay ninkan intii hore wuu wanaagsanaa waayadii dambe ayaa ninkii isbedelay wuxuu bartay khamri wuxuu bartay daroogo wuxuu bartay khamaar waxaas anigoo marka ka fakaraya ninkan sidee uga baxsataa oo madaxaaga uga qaadataa adii gabadhaada uga tagtaan ayaa maalin maalmaha kamida ayuu wuxuu xadgudub weyn u geystay gabadhaydii wuu xoogay gabadhayda aniga suuqan ku maqnaa gabadha way jiiftay qolkeedu inta ugu galay ayuu garaacay gabadhana dee gabar markaa soo baxaysay ahayd oo iska 15 jir 16 jir meelahaasi ahayd ninkii markaasaa waxaan imida tiri gabadhaydii qaylinayso hooyo ninkiisaan u yaalay madaxaan gacmaha saar war ninkunin muxuu ahaa ma gabadhaydii saan yeelay waxaan go'aansaday tiri ninkan inaan ka takhaluso gabadhayda u aaro ninka waxba kama qaban kare tiri waa nin iga weyn waa xoog badan yahay waxba ma isdhigin tiri qof xanaaqsan iyo iskama dhigin markaasaan waxaa eriya tiri waxaas waa caadi dee gabadha awalba nin guursan lahaa adiga haddaad samayso waaba iska qoslaa kulaa markaasaan dhahay waa runta anigana waxay tiri waxaan rabaa dhulka inaan la jaro nafta ka qaado waa baxay tiri farmashiyaasha iyo meelahana waxaan ka soo gatay tiri kaniiniyo marka la isku daro qofka uu hurdo fog galayo xataa haddii la jarjarayo soo waxba ka ogeyn cunto fiican u kariyo tiri uu jecel yahay alaabtii aan ugu daray nab aan ku siin
intuu kursiga fadhiyo qooro bilaabay meeshaan kursi waa sariirtaan geeyey tiri sariirtiisaan geeyey wiil marka waxaa jiray tiri walaashay dhashay oo aan habaryar u ahay oo wiil aada u fiican ah oo mar walba noo imaan jiray soo salaami jiray wiilkaas isaguna waxaan waa kugu daraa iri gabadhan markay iskuulka dhammayso waa isguursanaysa wiilkana gabadha u fiirsanayaaba waa habaryartiisaa dhashay waa iska warhayaan wiilkii aan wacay tiri ninkii hurduu ku jiraa waa ogahay tiri ninkii farmashiistaha wuxuu igu yiri ninkaas 3 beri ma kacaayo kaniini noocee ninka la siiyey waaba yaaba 3 days oo dhaay ninka waa yaalayaan waxay tiri ninkii aan waxaasuu sameeyey wiilkii wuu xanaaq waa gabadhii mustaqbalkiisa ayd uu raajicinayo inuu guursado rabay ayaa ninkan ku xadgudbay waxay tiri adiga sawjadaadii mustaqbalka sidaasaa loo galay gabadhii ku jeclayd adna aad jeclayd haye anigana gabadhaydu ninkan sidaa u galay haye ninka sidaasaan yeelay tiri kaniiniyaashaasaan siiyey haye intuu jiifo waxay tiri horta naftaan ka qaadaynaa madaxa uga fariisay tiri barkinta iyo wax neefta ku celi ceeji nafta ka qaad markuu dhinto adiga iska bax anaa jarjaraaya tiri ninkan deesana waa xanaaqay moogta wiilkii labadoodii shaqadii qabteen ninkii waa la ceejiyey neefta lagu dhejiyay dee ninka karaba maaha awalaa 3 days loo jaray tikidaa la siiyey markii horeba maaha ninkaan markaa naftiyaa laga qaaday ninkii markuu dhintay arkeen wiilku iska baxay tiraadi yaan lagu qabanin wiilka waa iska tegin gabadheeda xataa way ka warhaysaa waxa meesha ka dhacay sababtoo ah ciilay u qabtaan dee ninka nolosheedii dhan u baabi'iyey islaantu dee zaynab caadi ma ahayne qaabay yeeshay aqooweys way jarjartay asaga dhan faasay usoo qaadatay way jajabisay farad jeerkee ku aruurisay jeerka waa qaadi waay dee nin iska weyn waa iska marka dambe waxaa isaga soo dhacay war hilibka si uusan u samayn soo lama shiili jirin digsi weynay takaysatay ee qayb ku shubtay inay shiishay rabtaa macnaha si urta uu u baabi'iyo haddaba waxay tiri waxay shiilidii iyo wixii intaa ku jirida ninka nin iska cayilan uu ahaa barakaysane urtiisii iyo wixii oo dhan guriga dhan ay qabsadeen ani marka waxaa ereetadaada kollay waa la ogaana waxaan meelaa geysana mana urkiisi wixiisi isaga carara aniga gabadheedu marka waa kasoo cararnay tiri ninka laakiin anaa sidaa yeelay sidaasuu sameeyey gabadheedu ku tacdiyay hadda xataa dhakhtaraa geen kartaan gabadhii waa la waday dhakhtaraa la geeyey waa la xaqiijiyey inuu ninkan si xun u galay wixii oo dhan gabadhiyaa marka sheegtay markii xaalku halkaa marayo booliiskii maxkamaddii geeyeen wiilkiina waa lasoo qabtay oo habaryarta ayuu ahay yaa kula fuliyaaldheen marka hore inay wiilka inuu baxsaday rabtay laakiin markii dambe waa laga dabageeyey markii dambe way sheegtay keligaa ma samey kartay ayaa kula sameeyey markii dambe waxay tiri wiilkaas samey isaguna wiilka sidaas u ahay tiri gabadhii mustaqbalkiisa ayada sidaa loo galay marka aniga isagu dhibaataa isla qabnay gabadhuna dhibaataa isla qabnay markaana udha saasa ahayn qaadigii marka wuu dhagaystay arrinkii uu maqlay si fiican u dhuuxay kadibna xukunkii maxkamaddu soo saaray wuxuu ku xukumay islaantii zaynab ahayd iyo wiilkii ay habaryarta u ahayd xabsi daa'im gabadhii yareedna waxba looma haystaalin ayadaaba maskiinta lagu xadgudbay waa lala kacay xabsigiiyaa la geeyey gabadhii yareyd 4 sano jaamacad looyarnimay soo barat looyarnimada weliba xataa ma dhammayn marka ay xogo badan ay heshay ilaa dhowr sano markay wadawaan looyarnimada waqti badan ay qaadanaysaa waddankaas markay wax soo baratay looyaro kale la kaashatay
kiiskii dib u baartay waxay tiri kiiska la soo celiyo looyaree u tagtay wixii dhacay u sheegtay looyaradii magaalada Faysalabad joogay kulligood gabadhii ku saf noqdeen ardaydii jaamacadda wixii oo dhan way dagaalamaysaa gabadha hooyaday qaladay ku xaratay leedahay qaadiga qalad uu sameeyay maxkamadii waxay amartay in dib kiiskii loo baaro oo loogu noqdo kiiskii dibaa loogu noqday waa la baaray waa la dhageystay xukunkii ugu dambeeya marka la soo saaray 4 sano maamada markay xirneyd ayadii iyo wiilkii ayaa xukunkii wuxuu noqday in la sii daayay oo la yiri xadgudubaa dhacay ninka asaga dambiga sameeyay idinkuna ciqaabta inta haydi ku filnaato sidaasaa lagu sii daayay gabadhii mar kale waxay dib ula midowday hooyadeed wiilkiina wuxuu yiri wallay ka tahay inaanan uga tagayn gabadhan hortaa maartay waa lagaaga hormaray iyo de gabadha waa la kufsaday yiri anigana gabadha waan jeclahay gabadhii uu guursaday hadda way isqabaana la yiri noloshaas adag soo mareen maamadiina way la joogtaa marka qisadii marka waxay ahayd qiso runtii aad cajiib ah maama Zainab caadi ma ahayn hadday markii buuqi lahayd oo qaylin lahayd alla gabadhayda haddaana ku dilin ninkaan difaacu gali lahaa markay ogaatay way isdejisay alhuduu deji ninkan qoyaanka ku qabaystiri nabsi way isu jilcisay cuntadii aad jeclayd waa kan waxaas waxa u bixin gabadhan awalba ninaa guursan lahaa dee wax weyn hadduu wax kaa dhaceen dhib male iska toobad keenaysaa inta tiri ayay sidaa u gashay haddaba marka fakar iyo aragti waxay idinla tahay soo qora aadaan u jeclaa kommentiyada aad bixisaan fadlan qisadana sheer gareeya oo like gareeya oo maaragtay haddaan ugu cusub tahay janalkeena qisooyinka nadaara labana fadlan subscribe-ka ka iloobin youtube-ka facebook-gana follow gareey asxaabay inta aan mar kale kulmayno iyo qiso kale waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo